soo ma garays aniga hataa gawaadhida technical aragta anaa la dagaalamay dadku ila socdo in abaabulka dadka wax loo geliya looga dhaadhiciyo ee loo abaabul markiiba ciidan samaysanaya tu banaan cid la tago in ciidan ka samaysanaybo kalaas siibka loo xidho kalaaskeedka maaskee siibka loo xidho ee hadii goor sibil kula gashan karaan kabaha qaata qofka waxa la socon kara bini aadan ugu adkaysi badan haday cunto tahay hadii ay tahay daal qofka ugu adkaysi badan baa la socon kara maxamed ali war halka ayaa ka hadlaya aniga markaas ninka Yuusuf uma habeenkii leeyay galay hadalkiisa la ilo soo raaci doo ninka Yuusuf ayaan ka gubnay on hobaska kaga dhufanay xabad sabeena anaga waxba laga ma dhiban ilaahay fadligi kaasina ka ayna soo weerareen buu noqday oo wareeshigii labaad ee xasuustaa buu noqday geerina guulna aslan baa la geerin afweyn istikaradii baan ku soo dhajinaa dameera haddaan helo waan ku dhajinaa haddii beenkeeda leeyahay taangi foostooyinkii meelaha yaal baan ku dhajinaa suuqee biyuu ku cabaa waxaan habeennimadii ka wadda ka usarnay habeenka dhaga wadda ka usarnay habeen oo dhan baan u gaafay subxiina waa barina waa inaan waagu noogu bariyay ilaa iyaga naga caawod roole subxiina waa inaan waagu qaaxa ka sokaysa noogu bariyay kii waa joog qayb kamid oo taariikhdii Maxamed Cali ah wadagi taxanaa Maxamed Cali daawanaynay Yuusuf Meydal Cumar waxay wada aasaaseen saldhiggii Daroor ama bayskii Daroor kadib howlgallo iyo jalaafooyin badan oo ay ka geysteen inta xadka ee dharan ay Yuusuf Meydal Cumar inaga warramaya Yuusuf soo dhow alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam barnaamij hore aynu halkan kaga hadalay oo sidii uu ahaa barbilowgii ururka aslam iyo sidii aan u soo galay aan uga sheekeynin maxamed cali kama marneen oo meelaanu iska soo galay sidii in ururka aslam loo odhan jiray markaanu nimi wataatare salamiyo wataatare salam oo Itoobiyaanka askartii maxamed cali waxaanaynu ku gabagabaynay inagoo marayna gorayaxun iyo iskaashigii labada urur SSDF iyo SLM weeyaan halkaa markay marayso qoladii SSDF howlgalkaa markay fuliyeen aynu hore uga soo sheekaynay hadalka lagu fahmi doono macnii marka dambe aad xidhiidhin doonto in waayo halkan aynu ka bilowno si qofka hore daawaday baa la socon kara ta dambe halkaynu ka qaadnay marka ayaa qoladii SSDF way iska noqotay waxoogaa hubka yare fududana way nooga tagto sida sabanada u badan marka iyagu xaggii ay ka howlgeli jireen ee gobollada dhexe ayay u noqdeen halkaa annagu waxaan ku soo hadhnay saldhigga iyagii ahaa gaashaamo markaas howlgallaa loo kala howl baxaya oo waa halka iyaduna waa silsilad kale dee lixle iyo cabdilaahi askar iyo cabdisalaam tukriya ka soo embabaxeen marka aanu howlgalka fulay ka bacdi ay soo mareen burca soo mareen burca kaga yimaadeen lixle labadii kale hargeysa soo galeen cabdilaahi askar iyo cabdilaahi askar iyo cabdisalaam tukri ee dabeetana cabdilaahi askar la qaban doono ee dabeetana howlgalkaa birjixsaa halkaa ka dhalan doono markaan tayadii ku soo noqdo annagu markaa gaashaamo markaanu joognay waxaa loo baahday in bays laga furo magaalada golaad Daroor sababtoo ah ururkii aslan bayskiisi waa gaashaamo ka ku xigaana waa Rabaso marka halkaa jiid dheer baa u dhaxaysa oo aad u dheer u kala fog
qodobka kale waxa weeyaan imeeshir dadkii deegaanada hayna islaamtu raad ku yeelato oo ay saameyn ku yeelato oo ay degto meelaha muhiimka ah arrinta kale muhiimka waxa weeyaan islaamtu markaa waxay degaysay meelaha Itoobiyaanku degeen si ay u garabsadaan way meel banaan may degi kareen waayo wax sababta inuu degi karo hore nuga sheekeynaa oo nidhi ciidamadii Soomaaliya oo deyntii dawladda Itoobiya maqnayd jiita iskaga milmay jabhada ay ka howlgaleen Soomaaliya oo Itoobiya la dagaalamayo Soomaalidu ay samayso Soomaali galbeed iyo jabhadii meeshaas lahayn dawladda Soomaaliya ay support gareyn jirtay ama ay taageeri jirtay ayaa dhulka ka buuxay marka waxa weeyaan lama degi kareen meel ka madax banaan meelaha Itoobiyaanka marka sida dadaal ku soo dhawaado Maxamed Cali baa wuxuu ka yimi galbeed markuu ka yimi gaashaamu noogu yimi gaashaama markuu noogu yimi markaa saraakiishii gaashaama joogtay oo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ka mid yahay oo Ali Hayaan ka mid yahay saraakiishii ugu waaweyneed oo Cabdilaahi Suufi ka mid yahay markii dambe istilayo jaahidiintii ka mid ahaa oo yar wareer hawlaha dee badan ee dhibta badan adigu xaaladaasun raacay adigu markuu yimi arrintu waxay noqotay in beyskaa la furo beyskaa daroor taasi waxay keentay in intayadii markaa halkaa daroor ka soo talowday oonu markaas ku joognay ilaa 4 nin ilaa 4 nin ku joognaa baa filaya gaashaam ayaana lagu soo daray Maxamed Kaahin iyo wasiirka markaa arrimaha gudaha ayna soo raaciyay si uu beyskaa u furo horta Maxamed Cali bartaas isku ka horeysay gaari Toyota buu watay gaariga Toyota ah oo la talaabay ninkii lagu oran jiray Aadan Cumar Dayr oo gudoomiye jabhadda Isxaaq oo markaa la sameeyo hirgeli weyday aha oo gaarigaas oo markaa qolada Isxaaq ay u soo iibisay gudoomiyaha qadar area uga soo iibisay jabhadana waxa gudoomiye u ahaan jiray ninkii lagu jeeday Cawl markaa Cawl markii la xiray ayaa nin la yiraahdo Xamiida gudoomiye noqday حميدنا adigu markii dambe wax gudoomiyaha laga dhigay Aadan Cumar Dayr Allah ya raxmaan raaximiin intooda be dabeetana gaarigaas uu la talaabay Aadan Cumar Dayr gaarigaas markaa Maxamed Cali wati markaa gaari Toyota buha ani gaariga Toyota ma taariikhda ku daraya gaari waa ka gaadhoone marka halkii baan iska soo raacnay oo ka soo dhaqaaqnay gaashaamo marka aanu daroornimi aanu maalintii oo dhan aanu dhexda ku soo jiray goor galaba baanu nimi markaanu gaashaamo ka soo baxnay goor galaba baanu daroornimi daroor markaanu nimi dee saldhig nooma sii samaysnaa dabeetana magaaladii daroor markaanu nimi nin baa idhaca waan idin kaxaynaya oo neef baan idin soo qalaya markaa nin magaalada xagga daroor oo bari ka xigta bari hawd ka xigta ayuu noo kaxeeyo gaarigaygii baanu kaxaysanay gurigii baanu tagnay caweyskii haddii aanu neefkiiba noo bislaanayaanu bannaankii caw dhigannay markaas ayaa xabadi ka bilaabantay goosigi wuu naga sarreeya markaa cidii aan aqoon hawd quman buu naga xiga daroor ka xiga
show jabhadii dagaalami jireen oo Soomaaliya ka yimi jabhad duufaan la oran jiray jabhadii awdka kala dagaalami jiray Itoobiyaanka gaar ahaan gobolka Ogaadeen ee la kula dagaalami jiray taageer jirtay dawladda Soomaaliya ayaa show talaabay oo daroor ag maray habeenkii baan ag maray aweyskii markay marayaan magaaladii lagu dhaxdo fiidkii markay marayaan magaaladii Goosega ayay ku kala baxeen oo dabeetana rasaasta la isku rido rasaas bay ku rideen waxay ka baqayeen in jabhad kale meesha joogto oo area jabhada kale markaas deegaanku leeyahay ayaa joog jiray oo nin xisaab weyne la oran jiray ay haysan jireen marka qaarkood bay jabhad ahaan deegaan ahaan isku dhici jiray koo deegaan ahaan ka soo kala jeeda isku dhici jiray dabeetana xabadii baa bilaabantay gaarigayga baan istaanay wax ka daba tawnay neefkina loo qalayna ma naan cunin waxaanu nahay marka ilaa 6 nin amba ilaa 7 nin baan nahay maxamed cali waxa la socday 3 nin saddexaynan ayaa la socdo jabhadiisii uu kala yimi oo afraad ee ula talaabay laba nin aboobay haay oo nin xasan loo jeerin muxtaar loo jiray iyagu aboobay haay oo borgaadadiisi bay haay ragaasina inuu liin mooyo kale Soomaal galbeed bay markii dambe jabhada Soomaal ay aslamtu weynaatay dib ugu noqdeen jiidoodii ninna hadaanu ma ka dhiban dhibasho kuba ogiye harwa baa la yaa taahir yar la yiraahdo wax reer gabiile oo bar dhawadkii oo niyo yar anooreen wanaagsan halkan imaka wuxuu joogi jireen wasaaradda warfaafinta ayuu dhex joogi jiray baryaaninkii maan arag markaas saddexdaan nin taahiriyana hadhawaa baa la oran jiray oo nimankii nin yar soo tababaray oo shandada u sidi jiro meelaha u diri jiro meel walba ka soo wareemi jiro ajaayib abuha oo haddana caruura markaas saddexdaan nin baa la socday saddexna xagga baanu kaga soo raacnay iyo maxamed cali waxaanu nahay ma xasuusto cidii gaariga noo watay inuu isagu waday iyo inuu qof noo waday ma xasuusto laakiin tirahaan 6 nin baan nahay iyo isaga 7 habeenkii baa xabadii bilaabantay xabadii baanu ka daba tagnay waa daba galaynay waa daba soconnay xabadii baa markaa magaaladii labada xareerood ka mareen markay labada xareerood ka mareen rasaas iyo hoobiyayaal yar yar wax jirta la qaato inta la leego gaagaabanoo shit shot layda hoobiyaashii yaraa markay ku garaaceen iyo rasaas 7 ay ku rideen dadka harra uga kala yaacay dabeetana magaalada duleedkeedii hawd ayay u gudbeen habeenkii baanu halkii tagnay magaaladii baanu la joognay waxyaalaha markaa ma xasuusano oo meesha ka dhacay dileen adigu habeenkii oo dhan halkii baanu la joognay ilaa labadii habeenimo dadkii adigu subaxii baanu iskaga nimi magaaladii lagu oran jiray Goosegi anagoo laba qadaba oo ka nimi neefkii loo qalay shalay dhan soo soconay ala dhan laba kaliya meeshaan ku arbushnay dabeetana subaxii baan soo noqonay Shandarbi baan soo noqonay Shandarbi waxa u dhaxaysaa Darooriyo Goosega halkaas aanu abaabulkii ka galaan odayaashii la shirray inay ciidan keenaan inaanu daroor degayno inay halkaa ku soo xareeyaan inaynu jabhadii halkaa ka abaabulayno marka arrinta cajaa'ib kaleed waxa weeyaan casarkii dambe ayaan anagoo waxba cunin maxamed cali halkiis ku qabsan oo miyaanu waxbaba cunayn le malaa'ig ma nihin sidii shalay baynu u soconnahay marka waxa weeyaan maxamed cali nin sidaas abuha afar iyo labaatan haddaa soo wareegtaa wax ma cunayo yani bisaylka qof ahaaneed wale anagu waxaan ku nihi Shandarbi baanu kaaga hadhayna
waliba anaa ku dhish waa naga tagaan magaalada baa wax ka soconnaa kaaga hadhaynaa ku raacmayna markii buu na maslaxayo dabeetana daroormeen waayo wuxuu doonanaynaa ku arkay ina mariya adigu daroor baanu haddana nimi marka waxa weeyaan waxaanu cunno daroor baa noogu horreysay waa 48 hours baanu ka soo wareegay dabeetana oonaan dee weliba waxba waayine magaalooyinku iyo amuuruhuna iska wax sidatee laakiin aydan u haleelinba haleel la'aan xitaa lacag la'aan namay haynin dee dadkaanu iska qani baabu ahaa waqtigaasoo dee annagaa darnay mehe deegaanka garanaysa deegaankaanu garanay laakiin haleelkunbaa hawsha lagu jiruunbaa baxadeeda lahayd daroor baanu la hadalnay sidii baanu daroor la hadalnay ninka lagu dhahdo maxamed calina intaan anu ka aqaanin abaabulka ku wanaagsan buu ahaa in abaabulka sa dadka wax loo geliya looga dhaadhiciyo ee loo abaabul markiiba ciidan samaysanaya tu bannaan cidlaa tago nin ciidan ka samaysanaya buu oo ay u fudud tahay awoodda uu leeyahay inuu dadka markiiba kasban karo oo dadkiiba hanan karo oo yeeri karo oo ay dadku raaci karaan haddii lasoo hadal qaado in masalan aan halkaas isdul taago intaana howlgalkii u gudbinayn ama daruuru gudbinayn maxamed cali wuxuu ahaayeen oon uga jawaabo sida adii weydiinaysa ee taariikhaha hore aad u soo waday shayada muhiimkaa nin wakti meel kaga lumo oo meel fadhiya muu ahayn haddaad la socoto 24 saac wuu soconaya ilaahay abuurtay ama gaari ha saaraado dee ama ha lugaynayabe dadka bini'aadanka ugu socodka badan leh ayuu ahaa waayo saacaddaa wada soconaysa buu halkaasaynu ka soo noqonaynaa waa ka soo noqonaysaan tuuladaa kale heblaynu tagaynaa waa ka soo noqonaynaa halkaa hebel baan kula ballansanaynu tagaya waa ku soo noqonaysaan halkaa galbalku wuxuu idiin dhacayaa subaxii markaa bilowdeen idinkoo 200 oo meelood ka soo noqday way intaa salaada la tukanaya mooyaan waqtiga cibaadada wuxuu ahaa nin aad u feejig oo aan dadkana kor u heegin hoos u eega dadka haddana kii hoos u eega la socda dadka kaa boganaya oo sidaasuu foorari jira wejigiisu wuu foorari jiray dadka sidaa wejigiisa uma eegi jiray haddana ilaa qofka xagga dhaqdhaqaaqa eriyada oo dhan nin la socda buu ahaa maxamed cali markuu kula hadlayo uu fadhiyo wuu jilba joogi jiray lugna dhulkuu dhigi jiray lugna wuu isku taagi jiray intuu barida dhigaa way yarayd dabeecadihiisa barida sidaa intuu dhigo inuu dagiigsado sida caadiga inuu dagiigsano ma sidaas muu samayn jirin wuxuu ahaa nin kadaloob lugna intuu taagan lugna jilibka dhigo kadaloob dadka kula hadla marka uu khudbadaynayo ee uu dadka la hadlayo muu ahayn nin istaaga oo sida dadku intay istaagaan ay hadlaan nin dhaqdhaqaaqa oo socodka dhaqdhaqaaqa oo socodka indhaha dadka raaciya oo maya socda isaguna oo istaaga oo saago kolla xagga u dhaqaaqay kolla halka u dhaqaaqay kolla halka ayuu haddii shiish jira xataa inaan macni nin aad u digtoon oo haddii masalan amba la tooganay amba isla qof wax ku dhufo aan istaagaynin oo socod samaynaya oo soconayo halkaa istaagay mar halkaa istaagay mar halkaa istaagay buu nin hadalka ku faseexa buu sida gaar ahaan af Soomaaliga Carabiga Ingiliisiga Oromiga af Oromida ku fiican buu laano nimanka aan wada socono markay Oromada ku wada hadlayaan ee Xasan iyo Mukhtaar waxa ugu hadlayaa si ajaayiba intaanu ka naqaanay intaan ka aqaanay intaan la socday waayo muddo uu saldhigga aanu sameynayno dhan baa la socday wuxuu ahaa nin xiriir badan sida dadka caadiga ah dadkii kale la shaqayn jiray nin xiriir badan buu ahaa oo nin ameel ugu tagaysaan oo burca u diraya
oo nin meel ugu tagaya alaab idiin soo dhiibay uu sido ama dirays ha ahaado oo Soomaaliya ka keenay ama raashin oo Soomaaliya ka keenay ha ahaato nin wax sida oo adu ku imanayo meel ugu tagayno adu Suuriyada badneed ninkaas dabeetana uu soo qaadaysa oo mid dirays keena mid keena in Sooman mid keena in raashin keena oo ila raashin halkaas ay dhigo raashin meel ka soo rarano soo ma garanaysi si bariiska saliidii wixii Soomaaliya laga keeni jiray markaan beeska sameeyeen markaas waxa weeyaan nin xiriir badan oo dad kale firaadi ugu taga oo isiyar suga oo macnay qof qura ugu taga oo isiyar suga oo dabeetana cid buu la kulmaya cid baa hebel ugu tagaysan nin bay maanta hebel ugu tagay meesha ugu tagaynaa baa oranaya isiyar suga oo dabeetana qofkii buu tagaya dabeetana mid meel uga soo warramay uu tagaya dabeetana mid meel uu diray buu tagaya dabeetana ni qoriyo urur ogaabo hayo meel qori ka soo qaadaysaan meel hoobiyeer ka soo qaad meel wax ka soo qaado markii bay isu keenayeen markaan qof ahaan nin aan dabeecadiisu adkayn oo markaa wada socotaan aan dabeecadiisu adkayn markaa wax ka wada hadlaysaan un mooyaan sida kalena aanu hadal badnayn oo nin sheeko badan aan hayn markaa isku wadataan gaar arrin kaaga sheegan arrin dabeetana inta ugu badan markuu ku yimaado koodhay hebelow arrintaasi jirta maxaanu ka yeelaa arrintaas adiga see maxay kula tahay hadalkii saa ku weydiiyey mooyaan waa intii aan dabeecada aqaanay marka waxa weeyaan muddo adigu bila ayaanu abaabulaynay xeradii Itoobiyaankaanu tagnay saldhigii baanu ka salaxnay wayna siiyeen nin markuu saraakiisha Itoobiyaanka la hadlay ku dhiiran oo mooday inuu Itoobiyaan yahay oo sidoo korneelka kale markay meel wax ka dhigayaan sidoo ordaya buu galay korneelka kale oo soo maxad saa u sameynaysa oo canaanaya sidii kii ka sareeyay uu yahay yaa ku dhiiran ayuu ahaa marka halkii baan saldhigii ka sameyn saldhigiiba durbayla 150 nin tira aan ka yaray ayaa iskugu timi marka waxa weeyaan hawlgaladan fulina waxa kamid ahaa horta marka waxaanu qaban hawd oo qoladii Itoobiyaanka la fulina dabeetana goosagii baanu ka baxnay halkaas aanu ka galay la ku qotomalay la ku boodlay meel lagu dhax markaas waxaanu horsaadoo jabhadii halkan naga dhaafto area degan ayaa gunta ka rujisay ayaa dabeetana aanu halka la ku qotomalay iska helay gunta ka rujisay jabhadii dabeetana waanu kala yeerinay mid walba ka dhacay halkaas aanu ka bilownayo dabeetana dig baanu iska tagnay oo qolo ka tibay qarbi taharre iyo meesha ka tibo kale Itoobiya noogu tib bil ku dhawaad baan halkiis iska deganay oo jabhadii laga saarayay wadanka jabhadii Soomaali galbeed taageeri jiray si wadanka dhaqdhaqaaqiisii iyo Itoobiyaanka isu socodkiisii meesha dawladdu ay u maamulato dhulkeedii ay u maamulato sababtoo ah haddii kala miina la dhigaya jidkooyin baa la gelaya waxay kaas markaan ka soo hoyanay hawlgalka markaan ka soo hoyano adigu mid lagu qaatay isaguna 25 cisho meel adigu meelahaas adigu bil dhawaad mar hadana time-kii oo go'an hayn qiyaas guud u baynu u qaadanaynaa waqtiga dadkuna saa ula socdaan macnii dialing book aynu ku qoraynay line time ma yahay waa taariikh hore wax badan ka dambeeyeen marka waxa weeyaan waxaan ku koobaynaa inay waqtiyada ugu dhawaan ku cabiri karno inaynu qaadano dadka ina dhageysanaya sidaas aynu la socodsiinayna taa markaanu soo noqonnay jiidii degnay waxay noqotay inaynu laba arrin samayno hawlgallada ururka isla markaa nin maxamed cali aad u yaqaana buu ahaa hawlgallada operationnada dooxatada ee gaadnay diro macne waxay samaynayaan sana garanaya macnaha ay samaynaysaa hawlgalladaasina garanaya
sababtoo ah daroor iyo xadku aad bay u kala fog yihiin waa ilaa dhowr iyo 40 kilomitir wey haddii aynu xadka ka qaadnaynu qaaxa tagno waa ilaa 22 ilaa 21 haddaynu sidaasii tagnana 30 kama dhowdhowa ama dhowr iyo 20 wey marka waxa weeyaan waa 50 dhowdhow wey marka waxa weeyaan inaanu meelaha dhexe raadina inaanu saldhigyar ka samaysano markaas waxaanu nimi waabacdo oo kale markaan waabacdo nimi waanu dhaqaaqnay qoladii rabasana iskaashi baanu samaynay iyaguna inay karooska iyo area soo fidiyaan iyaguna ka soo agdhawaada soo fidiyaan oo dadkii daba durbays baranay oo dhex galay oo leeyahay waa jabhadii oo dadana niman reeriya niman dadkiya oo meesha degana marka waxyaaba ugu cajaabsanaan horta bilowna waxayaan wuxuu noo oran jiray taga adigu waa bacdaan nimi ama raqdo oo kale marka kuma daahaysid oo in badan joogmaysa muddo yar gaan baad joogaysaa oo wararkana la soconaysa waxa dhacday marka idinku waxba sameynaynin miyaa anigu waxba sameynaynin horta waa istuso dadka waa istuso ma dadkii baan horta isbaranaynaa deegaanadii baan soo tagnay soo ma garanaysa waxa noogu cajaa'ibsanayd operationada aynu markaa bilownay waxay ahayd in la yiraahdo taga ama unugta waxa la yiraahdaa af Soomaalina de waxa xarga marka la unkayo ciidamada waxa la yiraahdaa 12 salka oo ah ciidamada oo marka dambana koox baa la yiraahdaa marka damba urur baa la yiraahdaa ama hurin marka damba hurin baa la marka damba urur baa la yiraahdaa dambana guuto markaas kooxdayadaasi ama labadayada unug ee meesha maraysa waxna loo diri jiray xadko kale sida labida oo kale ama taba qoryaala oo kale ama area ku dhawaan ku aadanahay marka labida iyo taba qoryaalo qura militariga Soomaaliya deganay ama khaatum oo kale khaatumna waa runtii waa tagi jiray war marka bariga hore waxaan ku bilownay miyaad garanaysaa raashin waxa jira Ethiopia militariga Ethiopia oo dad dry food leeyahay waa raashin ka loogu talagalay inuu ciidanku waxba karsanay oo markuu meel daga goosto marka waxa weeye waa dhaabo iyo qasacada yar yar oo ama qaar qutreed ku jirto ama qaar hilib iyo wax isku jirto suugadii oo samaysan ku jirto diyaarsan oo shurawada oo kale ama hilib oo kale ama qudaar oo kale tiyo dry food la diyaariyay si ciidanku waxba uga gaarsiin karaan karinta oo markiiba waa operation kaasoo noo diray wuxuu leeyahay operation ka qabta labi sagaala taga warqad yaro waxa jirta istiika soo aslam samaystay oo la yiraahdo guul aslam geerin afweyn oo istiika yare makaanu meelahan ku dhajino oo kala ama baabuurta ku dhajisano oo kala ama koon xusbiyadu ku dhajistaan oo meelahan ku dhajistaan oo kala dabeetana waanu tagaynaa magaaladii wuxuu leeyahay magaalada marka tagtaan ciidamada kaba waaweyn oo buurana waa gashan ku Ethiopia militariga xerooyinka soo ag marmara waxba ku ridina soo ag marmara dhaaboogiya ku soo ag goosta ku dul shaqaysta iyo qasacada ku dul shaqaysta subaxis ka soo tooreey habeenkii dhanbay tabatana khalkhalaaday waxa ciidan xalayna dul fadhiistay raadkii iyo cuntadii meesha aan ku cunay iyo waa operation dhan waa howlgal dhan oo fulinay way waa howlgal dhan oo fulina habeenka dambaan tabatana tuulada kala tagna waxaanu sameynaa gidaarkii ayaanu ku soo dhajinaa geerina guulna aslan baa la geerin afweyn istikaradii baan ku soo dhajinaa dameera haddaanu helno waanu ku dhajinaa haddii beenkeeda leeyahay taangi foostooyinkii meelaha yaal baan ku dhajinaa suuqee biyuu ku cabaa habeennimadii ka wadda ka usarnay habeenka dhaga wadda ka usarnay habeen oo dhan baanu gaafin subxiina waa barina waa inaanu waagu noogu baryin ilay iyaga naga caawod roole subxiina waa inaanu waagu qaaxa ka sokaysa noogu baryin
halkaasaanu waa howlgal dhan fulinay la soco ma ahayn meesha iskama naan marmarin waa howlgal dhan oo aanu fulinay oo ay dawladdii Soomaaliya warbixin ka bixinayso taarar ka dirayso inaan xal u dhan la joogno muddaanu saa ku wadno dabeetana waxa weeyaan waxaanu tagnaa haddana bahashiyoo kale waxaanu tagnaa khaatumoo kale waxaanu samaynayna ma taqaanaa habeenkii baanu magaaladii haysanaynaa waxaanu tegaynaa meelaha waxaanu ku garaacaynaa ay fadhiistaan dee kuwa askartii hadday qaar ku hadhaan iyo meelaha ay fadhiistaan inaanu nimi halkiiba warka u sheegay xalay waa nala soo garaacay xaloo dhan magaalada ay haysteen waa iska baxaynaayo waxaanu gelaynaa halka yagii marka ama raqdaanu tagnaa oo dee waqooyi ka soo xigta ama waxaanu tagnaa meesha lagu dhahdo waaba caddo oo kale ama karooskii oo kale obereshkii ugu horreeyay waxau ahaa lebidaanu dabeetana ku qaadnay lebida markaanu ku qaadnay qolo jabhada ayaa deganeed oo innaga ah oo degaanka ah qoladii suuriyaanu u fadhiisanay adigu qori dusha naaskalo berigaan laydhaa qori ingiriiska ahaa iyo caaglayaal ay meesha ku gaadhgarayn jireen baanu habeenkii ka ururin habeenkaa horta obereshkiga halkaasaanu ku fulinay obereshkii ugu horreeyaanu fulinay kaasuu ahaa qoladeedii daroor gaashaamiya wixii hawlaanu ka fulinay maaha beeskii daroor baan kaaga sheekeynay waxa kaleanu samaynaa marka aanu magaalo tagno bilmasalan meel 12 kilomitir u jirta subaxii baanu sahan u baxnaa dabeetana waxaanu tagnaa meel sida meel burco gooba la yidhaahdo 12 kilomitir hawd ka xigta dabagoryaalo kale dabagoryaalo waxay ku taalla xadka qofkii aan garanayn dabeetana halkaa markaanu marayna barqadii ayaanu xabad sabana ku ridnaa dabagoryaalo dabeetana dushiisa ku qaraxdaa bow halkaasay dhahdaan waa layna soo weeraray difaac galaana yaaca waa howlgal dhan fulinay howlgal fulinay markaa ashi ku shiideen markaan ku shiidnay waa howlgal fulinay wey dabeetana waxaan xasuustaa waa wareeshinadii ugu horreeyey waxaan xasuustaa dabeetana habeenkii maalintii dambaanu tagnay meel la yidhaahdo burco goobada burco gooba markaanu tagnay dhowr habeen baanu joognay waana dhul kaynoo jiqa ha adigu burco goobay nagu soo weerareen burco gooba markay nagu soo weerareen waa dawladdii siyaad barre ee casarkiina galeen adiga laba unug baanu nahay ama 21 baanu ama 22 ama 23 baanu adigu qoloba kayn bay gashay halkii gaari beebeeya ayaanu ka gubnay oon hobaska kaga dhufanay xabad sabana annaga waxba nagamay dhiban ilaahay fadligii kaasina ka ayna soo weerareen buu noqday oo wareeshigii labaad een xasuustaa buu noqday oo iyagana soo weeraray dabeetana markaanu halkaa marayno annagii qoladii rabaso iyaguna xoogaa ciidana haysay ayaanu israacnay markii obereshkii saddexaad halka inteedaan israacin jabhadda deegaanka ee halkaa joogtay qorya ka ururiseen ma dawladday raacsanaayeen ciidan dawladda hadhaagii bay ahayd jabhadii ka hadhay Soomaaliya ay taageeri jirtay ama lilabisigaalaaba jooga marka waxaan ku meedaan sameeyna wasiidii waxna kuma naasabeyno si qoryo baan urursanay ila waa inama inaga okay qorsleen goodaha soo talaabaan oo haydiya baataale waabay soo talaabeen qarciidankii baabay noqdeen rabaseel ku qaleen qoladii reer rabasoodo way noo timi oo markaa Cabdi Yuusuf Odayo in Shakiib Sultaaniyo ninkii lagu oran jiray saacin gorgoro isaguna amiinaysta ahay raggaasaa joogay markaa oo raggii ugu horreysay la keenay iyo nin markii dambe soo galay oo la oran jiray ina tarabi oo markii dambe soo galay badhood buu inta la raxmay markii dambe soo galay iyaba joogay markaa oo saraakiishii la keenay ee beeska ka sameeyay oo dhammaantood reer rabasooda
marka habeenka waxaanu ku qaadnay weerar marka arbush baa la weerar lama yiraahdo waa arbush habeenkii baad rasaas sabaniya balaayiyo wax ku ridaysaa markaad khalkhalisabad adigu baxaysa wixii ay ka hesho xabadaas ee nasiibka hadda wixii balagoodu galaa waa nasiib waa meelihii laga bilaabay waa meelihii laga bilaabay si fiican markaas hawlgalkan waxaanu ka fulinay meesha lagu yiraahdo guuxa marka habeen bay ahayd gawaadhidii xadka waxaanu sii dhiganay meelahan ka sokaysa la qeyrta qool dhuxulaale la qeyrta reer roble oo waxay ka xigtaa bari ay kala simantay ina guuxana hawd biimanka naga sameeyo salax lebu ka sareeyo habeenkii baanu dabeetana meel dhaxay bay noo sii galeen oo guuxayagii bay ogaayeen xeradii rasaas kumaanaan ridin dhexdaan iska helay adigoo barashkaana 2 nin ayaa habeenkii naga dhintay meydkoodii maanaan qaadan waa ka tagin labadaan waalkii ugu horeeyay wax naga dilaan marka operation-nadii saas oo bilowday oo taroor oo dabeetana barigii ayaantii dambena waxay soo weerareen nagu soo weerareen meesha lagu dhahdo karooska oo wadada qaaxa marto goor casar oo camirantay oo magaalo noqotay ayaa nagu soo weerareen waxa kale oo waqtiga bilaabmay jaadkii Ethiopia ee Soomaaliya laga joojiyay marka wadadii qaaxo ayuu jaadkii markaa bilaabay oo maraya sidoo burcana halkeeda uga galo hargeysana halkiisa uga galo بربرنا هلكا ka soo talaabay berbere wuxuu buuga gudbayaa ba hargeysa ba burcun buuga gudbayaa ay buuga gudbayaa marka labada xadka ku dhow doonaya inuu soo dul taago ha marka waxa weeyaan uu doobadii oo kale halka ka tago iyo wixii ka baaleeyo wadadii qaaxintu qaado oo dabeetana ama xaj saalaxa ka galo ama laan mulaaxa ka galo ama duruqsi ka galo oo halka xadkii ka galo oo xafiyada cawdada halka ugu toosan ee ugu dhow uga galo burco hargeysana si quraca oo kale ya inkastoo halka gawadhiyaari ka soo galay tabiiray ka soo gali jireen haashin oo kale uu dago markaas markii dib u dagaana waaweyn noqday marka uu qaax wuxuu bilaabay wadadii qaaxan marka in la baneeyo bilownay وعيدك محمد علي مركا ما يقول قلبان يبري مركا واس قبصتين ها واس قبصنayba oo wadadii qaaxan qabsanayna oo gaarigii jaadku maraya oo qaaxa loo soo guuraya marka oo la banaynaya markaas markay halkaasi marayso waxay soo weerareen haddana dhoobada oo la degay ha mar labaad qoladii soo weerartay faqash tahay dabeetana shaqo shicfa bay ku dishay anaga 2 nin baa naga joogay markaa nin markaa saraakiisha ciidanka oo xasan galay la yiraahdo operation lagu jiray markaasna intuu galbeedka yimi maxamed cali ragii ay afraad wada haayeen oo dabeetana markaa daroor noogu yimo ragii nala abaabulayay ah xasan galay uu nooliyay baka uu joogay xasan ebel oo baxle ha uu joogay markaa oo xasan iyo markaas hal u joogaan ay soo weerareen markaas 9 waxay ku dileen markaa 5 iyo 9 waxay ahayd mooyee shicibkaabay beebeeyad jireen kullay markaa operation kaasaanu dabeetana annaguna daroor ka nimi aanu nimi xabashadiina soo rarnay maxamed ali soo raray dhoobadii bay sii ku tagtay xabashadu oo qaaxa dabeetana qaaxan soo degnay mar hadda xabashadiina noo soo degtay laba ku daba gabanayna nimankii Etoobiyaanka waxay noo soo tageen kabaabiga dad soo saartay ha dhoobadii bay noo soo tageen way dhoobadii baan markaa annaguna soo tageen markaa hawsha waxay isqabsatay ilaa dhoobadii dabeetana waaba caddo xad kale laadkiisa tubantiin markaa dabeetana halkaasoo كروسكي بيا لا ها صدح لا مقالة ها دبت حقي كالبركي لا عيدك ويمي عيدك كاشامنا ويمي ماشي الله يقول هذا هذا المايره قبا طالعوا حل حلس نحن مش لابد تقري اوكي
marka uu laykii hoose saa u qabsado mar hoose okay waa guurteen hoos baa u degtay hal step forward hal tallaabo qaadno xaggii hore hadda madaxdii Axmed kama xigaan barcago markaan joogno waa u soo dhawaanay bay waa 12 kilomitir ma sahlan marka taagantihiin de markaan deganay waa cadayo dhoobadii waa qaaxan taagantihiin ha waa 12 bal 20 weeyaan marka hore konton ku jirteen dib marka hore konton ku jirteen horta intaas la soo shaqeynay Maxamed Cali oo base ka furnay intii aan aragti ka aqaanana waa nigii hore ku mariyay Maxamed Cali mar dambe waa isku soo noqonnay oo adigu aan galbeed ka soo noqday adigu area-da ilaa 6 bilood markaan ma gaasha ma ka nimi ilaa 6 bilood ayaan base-kii terror ka shaqeynay oo la shaqeynay Maxamed Cali markaa terror marka la joogay ayaa waa sheekeyn jiray waana yar hadal dhaadheer dabeetana wuxuu odhan jiray Maxamed Cali war halka ayaa ka hadlaya aniga markaas ninka Yuusuf umba habeenkii la gelay hadalkiisa la ilo soo raaci doon ninka Yuusuf ayuu ala soo baxay ninkaas uma hadalkiisa la ilo soo raaci doon habeenkii la gelay marka waa sheekeyn jiray waana yar hadal dhaadheer si fiican marka waxa weeyaan nin sidaas karakter ahaan intii aan ka aqaanaan anigu kala kulmay buu ahaa yani qaabka jabhadda ama qaabka howlgallada siduu noogu tareerin garaynayay ama qaabka sidaanu howlgelinay waayo habeenkii oo kale odhanaya taga laba magaalo dhexdood taga masalan daba goryaale waa xadkiya iyo labi sagaala ama gocon dhaala ama labi sagaala may dhexdooda istaag xabadna ku rida sabanayn oo dul maraya daba goryaale xabadna ku rida labidii markaan labada dhow kaga siina waa iska soo noqonaa waa iska soo holeela ha marka waxa weeyaan waa maxay waxa weeyaan wuxuu kuu dirayaa 11 waa sahan ma habeenka dambe 12 waa sahan habeenka dambe 13 marka waxa weeyaan wuxuu kugu tareerin garaynayaa qaabka aad laano dadkan tababar lama geyn waa dad mii laga soo abaabulay marka wuxuu ku leeyahay haddii aynu de macnii nimankii isku dhacno kii awood leh dee gaadiidkii tiknikada oo dhan ee Soomaaliya Itoobiya lagula dagaalamaya waa faranta la dhigay oo waliba la keenay waqtii ay Itoobiyaanku soo noqdeen si loogu difaaco oo beebeeyadii leh oo suugagii leh oo shilkayaashii leh oo de qoriyihii afatri lagu dagaalamayo inkasta de qoriyahaasi marka hore qoriyii inta lagula dagaalami jiray haddana de Soomaaliya waxaa adeegsatay ama Itoobiyaanku waa adeegsadeen in lugta lagula dagaalamo marka haddii la isku dhaco 10 dhintaan dadkan way kala tegayaan arrinta markasta laga wacyigelinaya inkastoo deegaanadii hawdka ee markaan joognay isku dhac ka jiray beelihii xagga isaaq iyo xagga ogaadeenka ahaa ee wadaagga ahaa dagaalo ka dhex dhacay oo badani jireen kaasi wuxuu saamaxayay inaad dad badan hesho oo ay adigana kuu soo doontaan maxay garab ku soo doontaan ama support ku soo doontaan ama shidaal ha ahaata ama saasa dabo ha ahaata laakiin qoladaasi de waa iska dhaciyay ay dawladuhu keeni jireen had iyo goor marka qoladaas had iyo goor waxay saad kuga iman jireen ama waxa logistic lagula taakulaynta uga iman jirtay dawladdii Soomaaliya tiyo mararka qaarkood ay yidhaahdaan dadku waxay u adeegsanaysay dadka in aanay dawlad jabhadda aslam aanay ka hana qaadin deegaanka saldhigyadooda aan shaqeyn laakiin taas haddana dhinaca kale waxay keentay dee abaabul oo dadkii markuu dagaalo galo dad qori sita buu noqonayaa oo ciidana sidiisaba dadku wuxuu ku wanaagsan yahay oo bini aadamku wuxuu ku wanaagsan yahay deganaanshaha nabadgelyada oo qorigu inuu xeelada dawladda ka baxo dee dhibteedu leeyahay mar hadduu shicibkii galo ninkii kasta askari buu noqonayaa marka wuxuu noqonayaa nin ay u fudud tahay inuu hawlgal ka qayb qaadan karo marka anigu horta 6 bilood baa kala shaqayn jiray terroorka 6 bilood baa kala shaqaynayay inkastoo markii dambe markaan galbeed ka nimi aan ku soo noqonnay oo hawlgallo noo diray gudaha
laakiin ay u dhaxaynayso dee waqti dhan markay taariikhda gaadhno ay u dhaxaynayso way Mahdi Cali Faarax baa soo taariikhda dambe ku dari kara Mahdi Cali Faarax baa soo tallaabay marka waxa la yidhi baysasku bacdama uu dadku ku baysgareysay oo dee meel ay ciidamadu degaankii ay dadku ka dhashay ka soo wada jeedaan waa in meel la iskugu geeyo dadkii jabhadii hore iyo dadkii ciidamada Soomaaliya ka soo tallaabay sidaasaa dabeeta annaga qoladii nala qaaday annagoo rag 40 ama rag 50 nala qaaday oo ciidankii ka mid ah oo rag badan maanta ay ka nool yihiin laakiin badankooda ay dhintay laakiin rag doori ka nool yahay sidaasaa lagu geeyay laaqeyrta xarshin bay ku xigtaa laaqeyrta arabkana waa la yidhahdaa waxay meesha ku magac baxdun baynu inagu odhanaynaa laaqeyrta arabkana waa la yidhahdaa laakiin waa laaqeyrta ku xigtayn xarshin sidaasaa bayskaasi ku samaysmay oo la odhan jiray xasan saleebaan markaa waxaa dhacday aanu halkaa joogay in balle cabane la weeraro xasan saleebaan oo kale ku dhintay dabeed habeenkan aanu weerarayno qolbo ina guuxaayo kale ciidankii baa noo yimi ka soo baxay baabuli oo halkaas lagula qadeeyo nala joogo dabeed hawsha halkaasaanu soo fulin aan ku soo noqonnay markaas sababtu waxa weeyaan ciidankii baabuli ee waqtigaa urka salaam soo baxay ciidan kaalin qaaday oo meel deganaaday muu noqon ee wuxuu noqday ciidan baysaskii ay ka soo kala jeedeen may ku kala noqday ayay noqdeen markaas sababtaasaa haddana ciidankaa kale guutada aadan saleebaan ee laaqeyrta laga asaasay loo dhiibayay Mahdi Cali Faarax Allah yarxam arraahimiin saasaa lagu aasaasay markaas in yar baan kugu daray waxa weeyaan markan waxa loo yaqaanay halkaa islaamka basis waa bayska gaashaamo bayska daroor bayska rabaso bayska laaqeyrta bayska xarshin bayska quraaca bayska dabeelweyne saas oo kale marka waxa la isleeyahay bays waa kalmad ingiriisi ah waa saldhig Soomaaliga waa saldhig marka waxa baysaskaas lagu bilaabay marka taariikhda halka waxa kugu noqonay baysaska maxaa laga bilaabay wadadii sare ee Itoobiyaanku joogay sida xarshin oo Itoobiya laaqeyrtii haddii bay gobyakay haddii bay dankeeda leeyahay rabaso darooro markaa laga samaynayo gaashaamo marka dambe la tagay xalxalis gaashaamo marka hore saraakiisha halka lagu soo baysgareeyay marka taariikhda ugu noqono waxna waa taariikh sida gobyarayo kale markii Maxamed Cali ciidankii afraad u tallaabeen markii dambe saraakiishii galbeedka waxa la keenay xarshin oo kale qoladii eriyada ciidagala ku beegnayd oo kale waxa la keenay awaara ka yimaadeen waxay degeen Ramaso qoladii bariga saraakiishii halkee la geeyay waxa la geeyay gaashaamo ilaa baaladhee markaa uga sii gudbeen markaas markii dambe haddana waa nagan daroor furayna marka haddana halkee farac baa ka bilaabmay faracaasi inuu dee markaad baaldhayo kala joogto ay habuure u guuraan markay gaashaamo kala joogaan xalxalisna u guuraan meesha lagu dhahdo guba daalaco annagoo kale aanu u guuro dhoobadii iyo waabacadto qoladii rabasoo kale ay u guurto karooskii oo kale ama eriya burcaduuray oo kale ay saldhigya ka samaystaan sida qoladii xarshilood kale quraca u guurtay aracarayo kale loo marka in xaggii hore xadka lagu sii dhawaado marka galbeedka iyo bariguna waxay ku kala dhow yihiin xadka hadiyo waxa weeyaan xagga barigu uga yar durugsan marka waa inaad meel dhexe heshaayo aad ka soo gaari karta xadkii halka dawladdii Soomaaliya kugu soo horeysay la dagaalamaysaana waxa weeyaan waa xadkii ciidanka ku gaaraysa marka waxa weeyaan anigu 6 bilood baan halka kala soo shaqeeyay dabeecadiihan waariga kaaga waramay wixii kala wixii weydiinaysana si fiican okay waxaad iga warantaa hadda 6 bilood la shaqeyn jirtay Maxamed Cali muxuu jeclaa inna maxaad ka xasuusataa waxa weeyaan horta waxa weeyaan intaan ka xasuusto waxa weeyaan
nin hawsha uu ku jiro dagaal baa lagu jiray Soomaaliya ma ciidan baa la sameeyay macni nin hawsha uu ku jiro ay ka go'antahay ku eeg buu muhiim u tahay ma nin hawshaasi muhiim u tahay oo macni shaqo kale qofkaas inta la wada socotaan aad ugu imanaysa ya macni inuu meel fadhiisto iska qaylayo in odayaal la tago la sheekeeyo macni inta ugu badan ma dadka wada hadleen geedkaas oo kale ku wada hadlaan haddii de guri mar la idinku yeedho la ilaa soo fadhiisto oo uu de fadhiisto de waa dhici jirtay ama habeen oo kale meel isku timaada waayo waxa garanaya habeen aanu de israacnay oo kale oonu dabeetana rabasa tagnay oonu Ibrahim Koodbuur ugu tagnay Allah yarxamay Ibrahim Koodbuur markaa yimi oonu Ibrahim Koodbuur ugu tagnay marka waxa weeyaan marka qof meel ugu tagtaa inaan la yar fariisano waa laga yaabaa laakiin waxa weeyaan nin ay ku yaray Janiska uu qofka ula haystay dadku uu sheekeeyo oo laba shay ahaado mar ay habeenkii tahay nasasho tahay iyo mar uu hawl ku jiro uu ku leeyahay halkaas aynu ka soo noqonayna sidii aan horeba hadalka u soo maray halkaas aynu ka soo noqonayna hawshaas aynu soo filinayna meel hebleen tagayna mar qura isma taagayso gaarigiisaas marka qofka waxa la socon kara bini aadan ugu adkaysi badan haday cunto tahay haddii ay tahay daal qofka ugu adkaysi badan baa la socon kara qofka bini aadanka qofka ugu adkaysi badan haddii ay socod tahay iyo haddii ay cunto intuu ka maarmi kara tahayba waxa la socon kara qofka bini aadan ugu adkaysiga badan oo doonayso markaas markii dambe markaan isbarnaan ku hortii war dadku marka kula socdaan de malaa'ig ma ahe dadka markaa kood baa okay nin intee leeg buu dhar iyo midab toona may dharka waxa weeyaa waa dadkan oo noqonaya dheerar ahaan aan dheerayn gaabnayna rag dhaxaadkii ayuu ahaa kan nin cas sawirkiisa sida aragtay gadweyn sawirkiisa timiis isku joogaan aan bidaar lahayn soo ma garanaysid shaariyo surwaal had iyo goor kaaka u eeg labista iyo had iyo goor kaba soo kala oo kuwan siib kale eeg soo kalka ah inta la gashado in siibka loo xidho taxal hay kaba siibka loo xidho kaba askareedka maaska siibka loo xidho هذه قرش سبل كلها كشن كران كباها قاطع من أحد يقرأ أيار تهين أسكوت ما تاكيو هرده أنا أنت ماله قلت تقتاد ولا كساق عيني إنه كعيمو يا ولا أنت ماله قلت تقتاد هي بلو ساق عبالو قدوني يا مودرنيس مركز إسرائيل هدي عيدين هلا ورجع كي جابوا كردية هدو بيكام هيو كردية هدو السبب هي سكا كردية دي بكرة تقلبه بيبك يا سكا كلها تقلبه بيبك كردية أنا جالس كي دي بيدوك مركز وضع لوجيسا سو ما كريس أنا حتى قوارير تيجي نخارجته أنا لا تقلبه يدوك ولا صعدوا إن كستان كيو كردية أنا ودسون حتى أنا تقول دي كلها والقل خلاك الشباب واستعمال شيء وحاول استعمال لكن واحد كارك سامور كل صعود كل يقول جسمك كان جيدي أنا قاعد الدفاع ها أنا قاعد دفاعيين أنا قاعد دفاعية بيجي واحد تقركها يدوك هكبر كنا أنا قاعد دفاعية يدوك عندي كلام نعرف نقول لا تقلب بقولك ما صح أنت صاد كاي أنت صاد أنا كشيء كرا مرة بنا ونسكسر نقول شيء تاريخنا الضمبا إنه ها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توضيح أنت واحد كوها كلنا قريب كلكم ده برامج كلنا وايد شوف أنت برامج كلنا كلكم دورنا في أمان الله.